السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحنيه أن نقول إيجيني arrimaha taariikhda Soomaalida dadka Soomaalidu guud ahaan sanadihii 1900 waxa ku weynaa khiyaamadii uu wadanka Ingiriisku ku sameeyay Soomaalida ee uu dalka Itoobiya ku siiyay dhulka loo yaqaan Hawd iyo Reserve Area Allah uu naxariistay Umar Carte Qaalib oo waqtiga macalinka ahaa dugsiga Sheekh ee magaalada Sheekh kana mid ahaa dhalinyar waqtigaasi safar ku tagay dhulkaasi Hawd ayaa waxa uu ka xog waramay mar dambe taariikhda ay lahayd wareejintii dhulka Hawd iyo Reserve Area ee la raaciyay dalka Itoobiya mar wareysi siinayay BBC-da Allah uu naxariistay marxuum Umar Carte Qaalib wuxuu yiri sanadku markii uu ahaa 1954 xisbiga kali ah ee siyaasiga ah ee markaa jiray waxa uu ahaa xisbigii caanka ahaa ee SNL oo markii ugu horeysay lagu bilaabay SNS ama magaciisu ahaa SNS oo loo soo gaabiyay Somali National Society markii dambana isku bedelay Somali National League oo ah SNL degmada Sheekh waa xarunta tacliinta oo markaa lagu barbaarinayay madaxdii ummadda ee markaa la oran kareeyay bari ayay ummadda hogaamin doonaan waxaanu markaa xukuumadda Ingiriiska ee xukumaysay weydiisanay in aanu soo baranno dalkayaga tan macnaheedu waxa weeyii Somaliland waanu naqaanaaye dhulka Hawd iyo Reserve Area ayaanu doonaynaa in aanu soo baranno ayaanu Ingiriiska ku nidhi ee hana loo diyaariyo baabuuro iyo sidii aanu ku tagi lahayn way bay dhahdeen markaasi oo madaxdii Ingiriisku waa ay noo ogolaadeen marka meelihii kamidka ahaa dhulka Reserve Area ee ku toosnaa Burco ku toosnaa Hargeysa ee ku toosnaa ilaa Boorama ayaanu soo wada marnay deegaamada Walwal Wardheer Qabri Dahare Dhagax Buur iyo deegaamo kale oo dhulkaasi ku dheerarsan markii aanu soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay anaga oo ku soo noqonay deegaamada Milmil Awaare iyo kuwa kale waxaanu kadibna u soo gudubnay dhinaca iyo magaalada Hargeysa dawladdii Ingiriiska ee markaasi Somaliland xukumaysay waxa ay tiri warbixin soo qora idinka oo ka soo warbixinaya wixii aad ku soo aragteen deegaamadaasi iyo xaalka safarkiina warbixintii ayaanu isu diyaarinay in aanu qorno warbixinta ama riboodkaasi marka hore waxaanu ka warbixinay meelihii aanu tagnay iyo sidii naloo soo dhaweeyay iyo waxyaabo caynkaasi ah laakiin 3 su'aalood ayaanu ku khatinay oo aanu warbixintayada gunaanad uga dhignay 3 su'aalood oo aanu ku socodsiinaynay madaxdii Ingiriiska ee warbixintan naga sugaysay waxaanu ku nidhi maxay dawladdu iskuulo uga sameeyay weyday meelihii aanu soo marnay inta ay dhowr ka soo baxayeen Dhagax Buur iyo Awaare iyo meelahaasi ay ama Sheekh ama Boorama u keenayaan maxay iskuulo halkaasi uga sameeyay weyday dawladda Ingiriisku maadaama waxbarasho aad loogu baahan yahay deegaamadaasi su'aasha labaad ee aanu weydiinay Ingiriisku waxa ay ahayd waxa aanu aragnay saraakiil iyo askar Itoobiya ah maxay meesha ka qabanayeen ilaan dhulkani waa dhulkayagii maxaa keenay askarta Itoobiyaanka deegaamadayada ayaanu ku nidhi su'aasha labaad Ingiriiska su'aasha saddexaad ee aanu madaxda Ingiriiska ku weydiinay warbixintaasi aanu ka soo diyaarinay dhulka Hawd iyo Reserve Area loo yaqaanay waxay ahayd macnaha Reserve Area waa maxay Hawd garanay oo Hawd marka Hargeysa la joogo waa dhinaca koonfur wixii jihada koonfureed ka xiga ayaa loo yaqaanaa Hawd laakiin Reserve Area waa maxay arintaasi macna ahaan ayaan weydiinay waxa ay tahay reserve-ku Ingiriisku waxa uu la jeeday markii uu magaca bixinay 3 su'aalood ayaanu mas'uuliyiintii dawladda Ingiriiska weydiinay haddii aanu nahay dhalinyaradii waqtigaasi safarka ku tagay deegaamadaasi Soomaaliyeed nimankii dawladda Ingiriiska gaar ahaan ninkii governorka ahaa ee wakiilka Ingiriiska ahaa markii uu warqadii akhriyay ee loo geeyay markiiba London ay la xidhiidheen waxa ay dhahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxa ay soo mareen Reserve Area dabadeed waxa ay weydiiyeen why sabab macnaha dhabta ah ee Reserve Area waa maxay su'aalihii aanu warqadda ku weydiinay oo dhan ay dawladdoodii Ingiriiska ee London fadhiday ku wargeliyeen oo ay u sheegeen oo ay u gudbiyeen Allah uu naxariistay Umar Carte Qaalib oo warbixintiisan sii wada waxa uu yiri markiiba dawladda Ingiriisku way soo jawaabtay waxaanay tiri u sheega waqtigii baa la gaadhay ee ay waajibka inagu noqonaysay in loo sheego dadkaasi heshiis sir ah oo inaga dhaxeeyay inaga oo haddii aynu Ingiriis nahay ah iyo dawladda Itoobiya heshiiskaasi oo la kala saxeexday 1944 heshiiskaasi oo tixraaciyay heshiis kale oo ku beegnaa sanadkii 1897 kaasi oo la kala saxeexday markii xuduudda Afrika la sameeyay 6 bilood
ayay arrintii qaadatay intii ay isku diyaarinayeen wakhtiga rasmiga ah ee ay doonayaan in ay noogu sheegaan. maalintii dambe ayaa badhasaabka laftiisu ku dhawaaqay. waxa ay ahayd 28 bishii February sanadkii 1955. maalintaasi ayay ahayd maalintii lagu dhawaaqay oo la yidhi dhulkaa la yidhaahdo hawd iyo reserve area ma lihidin idinku, Ethiopia ayaanu ku wareejinay. intaasi markii ay dhacday ee arrintaa la yaab kale uu Ingiriisku ku dhawaaqay, magaalo kasta waxaa laga sameeyey mudaharado waaweyn ayaa la qaban qaabiyey. ninkii hadlaabana wuxuu ku halqabsaday arrintaasi dhacday oo waxa uu yidhi Ingiriisku wuuna khiyaameeyey, Ingiriisku waa uu khiyaameeyey ay dhammaan yidhaahdeen dadkii mudaharaaday. waxa dhacday in dadkii Soomaaliyeed ee shacabka ahaa uu kaco oo uu aad u cadhoodo, mudaharaado culusna ay sameeyaan. kadib waxaa la diyaariyey wafdi la yidhi London ha loo diro. wafdigaasi waxa ay kala ahaayeen Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Deeriye, Suldaan Cabdilaahi Suldaan Deeriye, Suldaan Biixi Fooley, Michael Mariano, Cabdiraxmaan Cali Dubbe, dhammaantood Ilaahay ha u naxariisto. wafdigaasi ayaa London loo diray. sida haddana taariikhdu dhigayso 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxeexay heshiis cusub oo uu la galay waddanka Ethiopia. heshiiskaasi oo uu kaga soo baxay dhulkii loo yaqaanay hawd iyo reserve area. markii haddaba xaajadaasi faraha ka baxday ee Ingiriisku sida u khiyaameeyey Soomaalida, waxaa Somaliland ka dhacay mudaharaadyo iyo banaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo go'aanka Ingiriisku ku dhaxal wareejiyey dhulka Soomaaliyeed ee uu gacanta u geliyey Xabashida. sida uu inoo soo sheegay haddaba marxuum Cumar Carte Qaalib, waa marka la qaban qaabin doono wufuudda ballaaran ee loo kala diray wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka, kuwaasi oo loo kala diray gaar ahaan London iyo New York. markii ay taariikhdu ahayd bishii Abriil sanadkii 1955 ayaa wafdi ballaaran oo ka socda guddida baarlamaanka waddanka Ingiriiska u qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen waddanka Ethiopia si ay uga soo xaajoodaan dhulka Soomaalida ee ay doonayeen in ay dib uga iibsadaan. hase yeeshee uma ay suurto gelin arrintaasi oo Ingiriisku arrintaasi waa ay ku fashilmeen. 25 bishii 8 ee August sanadkii 1956 ayaa boqorkii Xabashida ee la oran jiray Hayle Selassie ee xukumayay waddanka Ethiopia hadal uu ka jeediyey magaalada Qabri Dahre. hadalkaasi oo taariikhda Soomaalida galay in badanna ay Soomaalidu aad u xasuustaan. boqor Hayle Selassie waxa uu hadalkiisaasi khudbadda uu ku jeediyey uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin wax uu ku tilmaamay qoyska weyn ee Ethiopia. saaxiibayaal, mawduucaasina halkaas maanta inoo jooga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.